habeen wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo joogtaan iyo si walbood inoo maqleysaan waa habeenimo ay isniina sii baxayso talaadana ay soo gelayso 3 bisha June 2019 iyo taariikhdu tusaaleynaysa kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo inta ka faahfaahsan. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lagu wadaa in ay dhameystirto saacadaha soo aadan xidiga lagu magacaabo Nazad. Real Madrid ayaa la soo warinayaan markan qaarka ay u saaran tahay la soo wareegitaanka xidiga Chelsea ee Nazad kaas oo muddo dheer bartilmaameed u ahaa. kooxda kubadda cagta ee Los Blancos ayaa iyagu waxay xidigan la gaareen heshiis hordhaca oo ay ku soo qaadanayaan xidiga heerka caalamiga u dhashay wadanka Belgium. madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Florentino Perez ayaa isagu xaqiijiyay in Nazad ay ku dhow yihiin isla markaana ay soo gabagabeyn doonaan. marka ayaa warinaysa in ay jiraan wada hadallo u socda labada kooxood ee Chelsea iyo Real Madrid. xidigan qarka uu saaran yahay in kooxda kubadda cagta Real ay si rasmi ugu dhawaaqdo in ay soo qaadatay 28 jirkan ayaa ahaa mid kooxdiisa ka caawiyay inay qaataan Europa League xilli xidigani oo ahaa mid laba jeer shabaqada soo taabtay kulankii Europa League kooxdiisa uu ku hogaamiyay kaas oo ka dhacay Baku waana xidig muhiim u ah safka kooxda kubadda cagta ee Blue Chelsea. Hazard ayaa isagu waxa uu yahay mid Santiago Bernabeu muddo dheer la xiriirinayay balse markan wuxuu muuqataa in hadalhayntii muddada soo jiitamaysay ay gabagaba noqon karto. Hazard ayaa isagu waayihiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa uu yahay mid u ciyaaray kulamo gaaraya 352 kulan xidigan tan iyo markii uu kaga yimid kooxda kubadda cagta Lyon 2012 waxaana u dhaliyay wax ka badan 110 gool waana mid kamid ah xidigaha shumaca u ah Premier League dalka England balse waxaa lagu wadaa in uu ku biiro horyaalka xiisaha badan ee La Liga dalka Spain. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaana saacadaha soo aadan sida wararku ay leeyihiin si rasmi ah xidigan ula soo wareegi doonta. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markan iyaguna waxa ay doonayaan xidiga kooxda kubadda cagta Lyon weerarka kaga ciyaara. Arsenal ayaa la soo warinaya in ay aad u xiiseynayso xidig si aad loo baadigoobayo kaas oo lagu magacaabo Yusuf El Nazri waa 22 jir kamid ah kuwa ugu cajiibsan ee kooxda 12 gool ayuu dhaliyay 34 kulan uu u saftay xidigan kooxdiisa waxaana la warinayaa isla markaana warbaahinta kala duwan oo uu kamid yahay wargeyska Asavia in xidigani uu ku jiro xidigaha muhiimka Arsenal ee bartilmaameedka ay ka dhiganayaan. xidigan ayaa isagu waxa uu yahay mid lagu heli karo adduun gaaraya 8.8 milyan. kooxdan ayaana baahi weyn u qabta xidigan ayaa la xusaa in sidoo kale uu qayb ka ahaa kooxda kubadda cagta ee Leganes markii loo eego isagoo kaga yimid kooxda kubadda cagta ee Malaga isla markaana waqti ku soo qaatay. waa mid kamid ah kuwa ugu cajiibsan kooxda kubadda cagta ee Gunners ayaana isku dayi doonta xidigan inay soo xirigeliyaan iyagoo la dhacsan tayada iyo awoodda xidigan uu leeyahay. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo Bayern Munchen ayaa ku wada dagaalamaya saxiixa xidiga u dhashay wadanka Masar ee Mohamed Salah. Bayern Munchen iyo Real Madrid ayaa ku wada dagaalamaya xidiga Liverpool ee Mohamed Salah kaas oo isagu ku guda jira bandhig cajiib ah. Salah ayaa 71 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Reds 104 kulan uu saftay xidigan tan iyo markii uu kaga yimid kooxda kubadda cagta ee Roma 2017 waa 26 jir kaas oo sidoo kale goolkii koobaad u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool kaasi ay ku hanteen tartanka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. macallin Klopp ayuuna isagu u rumeeyay riyadiisa ku aadan inay qaadaan tartanka xisaab badan ee Champions League waxaana ay sidaa ku xaqiijiyeen koobkoodii lixaad ee Champions League. xidiga heerka caalamiga u dhashay wadanka Masar ayaa isagu mustaqbalkiisa waxaa jira in shaki ku jira waxaana majalada ay fahansan tahay in Real Madrid iyo Bayern Munchen ay labaduba ku dagaalami doonaan xidigan sidii xil ciyaareedka soo aadan isku garbin lahaayeen kooxda hanan karta adeegan marka la gaaro 2019-20. Salah ayaa isagu waxa uu yahay mid dhaliyay 27 gool isagoo dabcan liiskiisa ku qortay 13 caawin 52 kulan uu ka soo muuqday xil ciyaareedka idlaado ay ku fashilmeen in ay soo gabagabeeyeen abaarta muddada dheer ka soo horyaalka Premier League dalka England oo 29 sano kadib iyagu ay doonayeen qaataan balse Sky Blue ayaa ku guuleystay isla markaana iyagu ka dulqaaday. si walbaba wariyaha caanka ee lagu magacaabo Philippe Corion ayaa warinaya in Zinedine Zidane uu aad ula dhacsan yahay xidiga Liverpool weerarka kaga ciyaaray isagoo doonaya in Santiago Bernabeu xil ciyaareedka soo aadan
uu kaga qayb dhigo qorshihiisa ku aadan inuu ku dagaalamo aan xidig uu aad u jecel yahay. Real Madrid ayaa xilli ciyaareed musiiba qaatay, sida darteed Salah ayay u arkaan mid kamid ah kuwa ugu cajiibsan isla markaana kooxda ka caawin kara in ay qaadaan horyaalka xiisaha badan ee La Liga dalka Spain iyo tartanka ay caanka ku yihiin 13 jeer ay qaadeen ee UEFA Champions League. waxaana ay doonayaan in isbedel ballaaran ay sameeyaan, lacaga badan ayayna doonayaan in suuqa ay geliyaan, bangigoodana ay u jibiyaan xidiga lagu magacaabo Mohamed Salah, inkastoo ay garbin ay kala kulmayaan kooxda kubadda cagta Bavarianka kuwaas oo hantay horyaalka Bundesliga dalka Germany. Athletic Madrid wariyaankooda Antonio Griezmann ayaa isagu ilaahay hadda aan la kala xaqiijin mustaqbalkiisa xidigan xilli la warinayay inuu aad ugu dhow yahay heshiis horraacna uu la gaaray kooxda kubadda cagta Blaugrana. Antonio Griezmann ayaa isagu ka tagi doona kooxda kubadda cagta Chelsea xilli ciyaareedkan, balse Barcelona ayaa u muuqata kuwa ka cagajiidaya inay dhameystiraan xidigani, waxaana la warinayaa in ay tahay Barcelona kooxda ugu cadcad ee heli karta adeega xidigan. Si walbaba kooxda kubadda cagta ee Barca ayaa 20 jirkan aad ugu sii dhawaanaysa macquul ayaana laga dhigayaa u dhaqaaqida gegida caalamiga ee Santiago Bernabeu ee kooxda gooni-goosadka ee Catalanka. Antonio Griezmann ayaa isagu waxa uu yahay mid qayb ka ahaa guushii kulankii saaxiibtinimo ee xulka qaranka ee Les Blues ay ka gaareen xulka qaranka ee Bolivia kaasoo dhacay habeenkii Axadda ee kasoo talaabnay, waxaana uu ahaa kulan saaxiibtinimo. xidigani ayaa ah mid bandhig cajiib isagu kulankaasi ku lahaa, waa mid kamid ah kuwa ugu tayo badan ee kooxdiisa, inkastoo Barca u muuqato kuwa ka cagajiidaya. warar soo baxay ayaa sidoo kale sheegayay in xidigan uusan soo dhaweyn kala kulmi doonan qolka dharbadalashada kooxda kubadda cagta ee Blaugrana, taasina ay keenayso xidigan in uu ka gaabsado in uu kala cadeeyo mustaqbalkiisa maadaama aysan kusoo dhaweynayn kooxda magacyada saameynta leh ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo qaarkood aan la dhacsanan sida wararku ay leeyihiin. xidigan oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri, uma maleynayo mustaqbalkayga weli mid xalismay, waxaa jira su'aalo badan oo liiga weydiinayo balse dhammaantood waxay imaanayaan waqtigan, ayuu yiri. Marka ayaa sidaa ka soo xigtay Antonio Griezmann. waryahanka ayaa sidoo kale qandaraaskiisa ama heshiiskiisa lagu burburin karaa adduun gaaraya 104 milyan. xidigan ayaana ah mid cajiib ah, waxaana kooxdan uu u dhaliyay goolal gaaraya 130 markii loo eego gool 257 kulan uu kasoo muuqday dhammaan tartamada kooxda kubadda cagta ee Athletic Madrid, waana magacyada saameynta leh ee kooxdan qaybta ka. xidigan ayaana lagu wadaa in la kala cadeeyo mustaqbalkiisa oo ilaahay hadda aan meelna u dhicin xidiga lagu magacaabo Antonio Griezmann. Barca ayaana ahayd kooxda ugu cadcadeed ee adeega xidigan iyagu aad ku baadigoobay. sidoo kale mundiyaalkii dunida ee xilkiisu dabcan ay qaadeen ayaa xusid mudan tahay in ay jireen in xidigani la weerinayay inuu ku biiri karo kooxda kubadda cagta ee Barcelona, balse heshiiskaas ayaa dabcan burburay isla markaana aan suuro gelin. walina Barca ayaa doonaysa raacdada xidigan inkastoo aanu jirin ilaahay hadda wax cad oo ku aadan xidigan halka uu dhacayo mustaqbalkiisa iyo waliba kooxda ugu dambeyn uu ku biirayo. inkastoo Barca ay tahay kooxda ugu cadcad Premier League ayaa sidoo kale loo gacnaatinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa adeega xidigan daneynaysa. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyagu daneynaya isla markaana kusii dhawaanaya adeega xidiga lagu magacaabo James Maddison oo kooxda dawacada ka tirsan. Sky Blue ayaa la soo warinaya inay ku dhawaanayso xidiga Leicester ee lagu magacaabo James Maddison oo kamid ah kuwa ugu tayada badan ee kooxdiisa. Maddison ayaa 7 gool dhaliyay, sidoo kalena isagu xidigan 7 kale caawiyay 36 kulan oo kasoo muuqday xilli ciyaareedkii laada kooxda kubadda cagta ee Focuska 2019. Tottenham Hotspur, Arsenal ayaa dhammaantoodba eegaya horumarka xidigan uu ku talaabsanayo, waana daayirkii hore kooxda kubadda cagta ee Norwich City. silwaba majalada Football Insider ayaa warinaysa in kooxda kubadda cagta Leicester daayirka ka tirsan oo dhashay wadanka England uu yahay mid suuragal ay tahay inuu u dhaqaaqo kooxda ah championka horyaalka xisaab badan ee Premier League dalka England xilli xidigani lagu qiimeynayo adduun gaaraya 60 milyan haddii uu kooxda xidigani ka dhaqaaqayo. si walbaba waxaa xidigani la dhacsan bandhiga iyo waliba tayada uu leeyahay hogaamiyaha kooxda kubadda cagta City Pep Guardiola. 20 jirkan ayuuna doonayaa in awoodiisa iyo waliba muhiimada gaarkii uu leeyahay uu ka faa'iideysto. Maddison ayaa Leicester kaga soo biray kooxda kubadda cagta Norwich xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. King Power Stadium ayaana waxaa kaga harsan qandaraaska kula jira markii la gaaro bisha June 2023.
Madison ayaana ah mid kamid ah kuwa ugu tayada badan ee kooxdiisa xilli xidigani ay jiraan kooxo badan oo isku garbinaya adeegiisa isla markaana daneynaya sidii ay ku qaadan lahaayeen balse macalinka hogaamiye kooxda kubadda cagta ee City ayaa daneynaya xidigan sidii uu kusoo xirgelin lahaa isla markaana uu soo qaadan lahaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United, Barcelona iyo Juventus ayaa iyagu waxa ay yihiin kuwa ku wada dagaalamaya adeega xidiga kabtanka u ah kooxda kubadda cagta ee Ajax ee Manchester United. kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaana la warinayaa in ay tahay kooxda ugu cadcad ee heli karta adeega xidigan. kooxaha Barcelona iyo Manchester United ayaana u muuqan kara kuwa ku fashilmi kara raacada ay ugu jireen xidiga lagu magacaabo Manchester United. Juventus ayaa iyagu la diyaara adduun gaaraya 75 milyan in ay ugu yaboohaan daafac adag ee kooxda kubadda cagta Ajax ahna kabtanka kooxdaasi una dhashay wadanka Netherlands ee lagu magacaabo Manchester United iyagoo doonaya inay soo qaataan Barca iyo Manchester United ayaana ku fashilmi kara xidigan sidii ay ku soo xirigelin lahaayeen. Manchester United ayaa isagu waxaa sii jira wararka ku aadan isla markaana la xirinaya inuu ka dhaqaaqi karo kooxdiisa kubadda cagta Ajax waxaana jira kooxaha kala duwan ee daneynaya adeega xidigan oo soo taraya. Manchester United iyo Barcelona ayaa la rumaysan yahay in dagaal weyn ay u galayaan 19 jirkan inkastoo go'aankiisa ugu dambeeyay xidigan la gaari doono isbuucan markii la gaaro. majalada Toto Sport ayaa faansan in Juventus ay diyaar la tahay adduun gaaraya 75 milyan in kooxda The Old Lady ay ku soo xirgeliyaan daayarkan daafac dambe ku wanaagsan ee Manchester United. Delight ayaa qadaraaskiisa ku aadan kooxda Amsterdam iyagu ka dhisan markii loo eego waxa uu ku idleeyahay bisha June 2021 7 gool ayuu dhaliyay isagoo ka qayb qaatay xidigan 4 kale 55 kulan oo Ajax ka soo muuqda xilli ciyaareedkii idlaada ee 2019 waana mid kamid ah kuwa ugu tayada badan ee kooxda. waxaa jira kooxaha xidigan isku haya isla markaana aadka isugu garbinaya sidii ay ku xirigelin lahaayeen waxaana ay u muuqataa kuwa ilaa hadda aanu jirin mustaqbalka xidigan oo aan la kala cadeyn balse isbuucan ayaa la kala cadeyn doonaa halka xidigan uu dhaqaaqi doono iyo waliba halka ugu dambeeysa ee uu saldhigi doono xidiga daayarka ee kooxda kubadda cagta ee Ajax ee Manchester United kaas oo suuqa gilgilay isla markaana ah magaca ugu saameynta badan ee saaran suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. kooxda kubadda cagta Napoli ayaa la soo warinayaa in iyaguna markan ay daneynayaan xidiga Real Madrid ee ka tirsan ee lagu magacaabo Marcos Llorente oo la raaciyay Denis Ceballos iyo Thiago Hernandez dhammaantoodna waxay yihiin kuwa ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Los Blancos. Real Madrid ayaa markan waxay diyaar la tahay in saddexdan ciyaartooy ay daayarta ah ay gebi ahaanba ka fasaxdo safkooda maadaama qaab fiican aysan kooxda ku qaadan isla markaana aysan helin Janis kooxda ay isugu muujiyaan. macalinka hogaamiye kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa u muuqda mid aanan isagu ku faraxsaneyn hanaanka iyo waliba qaab ciyaareedka xidigaha